السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته ما أنت قف نصيب بدن ملهن قف أصوب بيت الله خطبة كأقريي كسو جيديي صلاة كسو بحي أرك أرجع حسدا أوجس أرحن الله وياشا على الشباب لبعتين. أولاً الله نحرسته ما أنت آد شرف له نينك ما أنت بيت الله أسوق كسب بحي كوجيريودي مساجد كأكتيسة السجى إيو ويل كيسة إله سبحانه وتعالى وحان أقر جيننا جنة الفردوس الأعلى. أنتوا كدنتني هلدوا كدنتي صبر إيمان الله كسيو بل سهل كان وحان أسوق قلي معهن waxaan la soconaa qof walbo ajashiisa ayay ku dhimanaya waayo maanta waqtiga ayaa ku ekaa inuu ku dhinto sheekhaas oo marna wasiirka ahaa inuu geeriyoodo maanta waqtigiisa ayaa ku ekaa ma ahan mid ay shabaab dili karaan shabaab waxba ma dili karaan waayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa wuxuu leeyahay idaa jaa ajaluha laa yasta'khiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun. waxaan yaqiinsanahay maanta in ay ajashi ahayd qof ajashiisa gashayne cidna ma celin karto insha Allah ta'ala. halkaan waxaan jeclahay inaan kala hadlo ururka argagixisada ugus in aan lidinka maqnayn dhibaato walba suubiya xumaan walba suubiya maalin baan soo afjarmi doontaan. maanta haddaad caadaysateen war intee ka keenteen islaamnimada qof muslim ah oo masaajid ka soo baxay oo salaadii jimcada soo tugtay oo khudbada asiga jeediyay intee ka keenteen inaad qarxisaan diinta idin sheegta maxay tahay? waayo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan ninka saxaabiga ahaa markuu dilay ninka gaalka ahaa oo dhahay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah ma adaa dishay ninkii oo ashhadanayo haa ilaahu marqaati ka naqoo dhahay ninkaan ninka uu dilay aniga waxba kama ogi. maanta waxaan halkaan su'aal ka weydiinayaa qolada argagixisada arxan laawayaasha al-shabaab ayaan halkaan su'aal ka weydiinayaa diinta aad ka hesheen in nin masaajid ka soo baxay oo baytullah ka soo baxay oo salaadii soo tugtay asigii iyo caruurtiisa salaadii ku tarbiyeysan yihiin oo salaadii khudbada jimcada asiga jeediyay maanta sharaf dhac iyo waxay idinku tahay horeba waa u ogeyn annaga inaad arxan laawayaal tihiin inaad dameerada gowracdaan inaad xayawaanaadka gubtaan balse laakiin siday ahaataba waxaa idiin sheegayaa awalan waqtiga qofka bini aadamka waqtiguu geeriyoonaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa u calaameeyey maanta waqtigiisa ayuu ahaa. allah u naxariisto الله ونحريستو جنة الفردوس أعلى الله جيو وايا ومن نصيب بدن ما أنت أديكو إلهي درتيس صلاة الجمعة وسو تكتي أو معلنتي معلمها وقفل لي بدنيد هيد أو صلاة خطبة أتسو تكتي أو خطبة نينكي أسيغا أخريي أها وزيرك ما أنت شرف يا كرامة ما أنت أسيغا يا مضن وايا إلهي سبحانه وتعالى آيات دورتي شهيد هداد مقشان شهيد كلغو شيغ واتنو كله ninka asoo salaada soo tugtay khudbada akhriyay oo nin ka gardaran dhaalim ah oo argagixiso ah oo shaydaan ah dilay ninka shahiiday waa wasiirka asigii caruurtiisa waa shahiid ilaahay xaqiisa waxay ka yihiin shahiid ummad kuma maqneen dhibaato kuma soconin gurigi ilaahay ayay marti ku ahaayeen Allah subhanahu wa ta'ala ayay salaadii ku soo gudanayeen gurigi balse laakiin ayagiyo salaadoodii soo gutay waajibaadkii ilaahay ku lahaa soo gutay khudbadii asiga ka soo akhriyay maanta nasiibkaas oo kale Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ka rajaynaynaa inay ummadda muslimiinta dhan ilaahay siiyo balse arxan laawayaasha argagixisada waxaan u sheegaynaa meel allaale meeshay joogaan idinka dhibaatada badsada ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa idin kula xisaabtamaayo balse annagana idinkama daba harsanin waa idin daba taaganahay insha Allah ta'ala
idinka waxaad adeegsataan dhagar iyo khayaano inaad ummadda ku dishaan balse laakiin anaga bareer ayaa idinkugu imaanaynaa ma idinka gabanayno bareer ayaa idinkugu imaanaynaa mi ii sheegi kartaan diinta idiin soo fartay nin ilaahay magantiisa ah oo salaadii soo tugtay oo masaajid ka soo baxay inaad dishaan kitaabka meeshuu kaga qoran yahay mi ii sheegi kartaan islaamnimadan kaligiina aadan hesheen oo annaga aanan helin intee ka keensateen walaalayaal waayo hal macallin ayaa wax na wada baray hal dugsi ayaan wax ku wada baranay balse laakiin shaydaan ayaa wax idiin sheegay oo inaad walaalihiina ku dhameysaan oo inaad wadanka ku baabi'isaan balse wadanka ma baabi'in kartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay idaa jaa ajaluhaa laa yastaxiruuna saacatan walaa yastaqdimuun sida maanta wasiirka u geeriyooday idinkana waa u geeriyoonaysaan balse xisaab maalinta yowmil qiyaamo ayay dad sugaysaa haddaad isleedihiin janno ayaad ku gasheen janno kuma galina naar ayaad ku gasheen shaydaankiina ayaa idinku fogeeyey inaad naarta ku tagtaan shaydaankiina ayaa idin tusay inaad naarta ku tagtaan cunugii yaraa xajaaj bin yuusuf assaqafi markuu yidhi maanta geeridaada dhiiggaaga ayaan janno ku tagayaa muxuu yidhi dhiiggayga janno kuma tegayside shaydaankaaga ayaa ku tusay maanta dhiiggii islaamka muslimiinta oo maanta salaada ayagoo tugtay waajibaadkii alla gutay oo adkaartooda akhrisanayo ninkii waddada u galay miino u geliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala xisaabtiisa way adag tahay haddaad janno inaad galaysaan moodaan janno ma galaysaane naar ayaad galaysaan naar wili midda ugu xun ayaad galaysaan saciiro ayaad galaysaan amiirka idiin joogo oo faataalaha ah oo dayuuska ah oo asiga miinada aanan isku xiraynin oo masaakiinta ku soo xiro amiirkaas jannaha dooraba miinadaas ku xiro adduunyada waxaa ceeb ah adduunyada waxaa ceeb ah wax walba suubi nin ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiisa ka soo baxay oo ilaahay magantiisa ah oo ilaahay salaadii waajibka lagu lahaa jimcada soo tugtay inaad dhibaataysid waa nasiib daro waa diin la'aan diin ma taalla meeshaas diinta waa tan masaajidka loo galo salaada waa tan masaajidka faralka lagu soo guto maanta nasiibkiisa oo kale allah na siiyo wasiirka dhintay asigii iyo wiilkiisa nasiibkooda allah na siiyo waayo al-shabaab ma guulaysanaysaan waxaad tihiin arxan laawayaal iimaan laawayaal diin laawayaal adduunyada ilaahay ummaddiisa ma dhammayn kartaan mar walba waxaad suubisaan dhagar ayaad suubisaan dhibaato ayaad suubisaan waxaad dhibaataysaan ummadda soomaaliyeed balse laakiin waxaad ilowsan tihiin ballanqaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi idaa jaa ajaluhaa laa yastaxiruuna saacatan walaa yastaqdimuun shabaab adiga mar baad dhimanaysaa aniga mar baan dhimanayaa kan adiga kugu shaqaysanaya shaydaanka ah amiirka sheegtay caloosha weyn le meesha fadhiyo mar buu dhimanayaa adduunyada haddaa go-aan ka dhigatay inaad dhiigga bini-aadinka aad ka macaashtid aad irsaaq ka raadisid walle waad khasaartay balse ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabtiisa way kuu dambaysaa annagana inaan ku baabi'inno diyaar ayaan u nahay waan u fadhinaa ma nihin kuwa adiga kaa gambanaayo amba kaaga baqaayo halkaan uma soo galin wasiirka keliya inaan uga tacsiyeeyo balse waxaan u soo galay inay awooddiina daciif tahay inaad masaakiinta tuugnimo inaad ku dishaan aad jeceshihiin inaad waddanka dhibaatada aad ku suubinaysaan mid tuugnimo leh ay tahay marka ninka tuugga waxaa lagu yaqaanaa waxbuu xadaaya wuu cararaa marka wax iska xada carara laakiin waa idin daba taagannahay idinkama daba harayna insha allahu tacaala intii gacantii shabaab ku geeriyootay xilli walba ahaato waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynayaa jannatulfirdowsi alaclaa inuu ilaahay wada geeyo waayo waa ummad muslimiin ah oo ilaahaygii abuurtay waqtigooda geliyey waayo waxa loo dhintaa ajasha looma dhinto cadowku soo weeraray
waxa loo dhintaa ajasha ruux walbo dhintay haddaa aragtaan ninka soo weeraray oo dhibaatada suubiyey shaydaankiisa ayaa ka dhex tusay inuu wax dhibaateeyo laakiin waqtiga ayaa dhammaaday adduunyada aan arkayno maanta ku sugannahay maalin haddii hal xaba bariis ay kuu dhiman tahay lagama yaabo inaad adduunyada ka tagtid balse laakiin maalintoo bariiskaaga ka dhammaado waa maalinta la geeriyoonayo shabaab waxaa ka maqan xukunkii ilaahay ee adduunka ku joognaa al-shabaab waxaa ka maqan diinta ay ku dhaqmaan diinta islaamka ma ahan diinta islaamka hadday tahay nin masjid ku jiro baytullaahi ku jiro khudbadii asiga soo jeediyey banaanka umayso soo istaageen miina umaysan dhigeen shayaadiinta waxa idiin sheegayso qolada xumaanta idiin sheegayso oo caadaysatay inay dhiigga muslimiinta banaystaan balse insha allahu tacaala sidaa idinka ummadda soomaaliyeed dhiiggooda u banaysateen ayaa annagana dhiiggiina jannada ugu gali doonaa insha allahu tacaala waayo halkan waxaan uga baaqayaa ummadda soomaaliyeed cadowgan argagixisada al-shabaabka ah meel allaale meeshaad ku maqashaan la socodsiiya ciidanka la socodsiiya waayo waa wax loo baahan yahay waa wax bulshadoo dhan ay u baahan tahay inay iska aragto cadowgan haddaadan liska qaban oo la soo sheegin hadda maanta midka dhibaatada suubiyey waxa macquul ah inuu qof la ogaa balse laakiin dhibkaas dhacay beri adigana wuu kugu dhici doonaa waxaa idiin sheegayaa dhibka intuusan dhicin cid walboo ogaato hala soo socodsiiso laamaha amniga shabaab waa tuugo dhibaato muslimiinta soomaaliyeed inay dhibaateeyaan rabaan laakiin shabaab waxaan u sheegayaa soomaali ma dhammayn kartid adiga shabaab waxaan kuu sheegayaa soomaali ma dhammayn kartid shabaab waxaan kuu sheegayaa islaamnimada inaad ka baxday oo xaandaabkii muslimnimada aad ka baxday oo bannaanka aad taagan tahay oo diinta aad haysatid caawa aniga shaki igaga jiro waayo baytullaahi gurigii ilaahay ninkii masaajidkii ka soo baxay salaadii jimcaha soo tugtay khudbada ninkii soo akhriyey jameecadii salaada la soo tugtay khudbadii maalinkaas jimcaha akhriyey haddaad dishay shabaab waxaan ku weydiinayaa cidda kuu soo akhrisay kutubkan adiga aawadatidoo 10 baal ah oo inaad dhiigga islaamka aad ku banaysataan ma ii sheegi kartaan ninkii idiin soo qoray ma ahane kitaabka qur-aanka kariimka ah waayo kitaabka qur-aanka kariimka ah nin masaajid ku jiro in la dhibaateeyo ma banaynayo nin laa ilaaha ila allah dhahaayo in la dhibaateeyo ma banaynayo balse laakiin idinka darajada oo noocaan foolxumada ah midka idiin soo dhiibay horta waa mid idinka foolxun kan soo qaatayna waa mid adduunyadana ku khasaaray aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa hoog iyo khasaare ayaa ugu sugan insha allahu tacaala annagana waxaan diyaar u nahay geerida ayaan diyaar u nahay sidaad idinka jannada u rabtaan ayaan jannada u rabnaa dhiiggiina ayaan jannada ku tagaynaa al-shabaab dhiiggiina ayaan jannada ku tagaynaa inaan idinka idin dilno ayaan jannada ku tagaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanaynaa waayo adduunka maanta annaga ma abuurnin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa abuurtay idinka laakiin waxaad u dhaqantaan sida qoom cadow ah oo ummadda soomaaliyeed cadow ku ah u muuqato maanta qof keliya ma danaysaan waxaad danaysaan ummadda soomaaliyeed oo dhan inaad dhibaataysaan ma ahan dhibaatada aad u jeedaan shakhsi ma ahan ummadda soomaaliyeed oo dhan inaad dhibaataysaan ayuu danihiina tahay marka adduunka annaga ma lihin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh sida maanta shiikhii wasiirka ahaa khudbada soo akhriyey aad u disheen ayaad u dhimanaysaan idin kale annagana waa u dhimanaynaa cid haraysa ma lahan balse laakiin ballanqaadkii ilaahay wuxuu yahay in ummadda bini'aadinka ah laiska badbaadiyo in dhiiggooda la badbaadiyo maanta haddaa baytullaahi u dhacdeen annaga horta dhiiggiina jannada ayaan ku tagaynaa idinkana haddaad dhiigga shacabka iyo dhiigga masaakiinta iyo dhiigga dadka masaajidka ku jiro iyo dhiigga dadka salaada tukanaya haddaad jannada ku galaysaan
annagana waxaa idiin sheegaynaa biidni illaah dhiiggiina ayaan janno ku galaynaa ciidanka meel allaala meeshay joogaan waxaan u sheegayaa al-shabaab dhiiggiisa janno ayaa lagu galayaa maanta waa nasiib daro maanta ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo hooyatay ummadan al-shabaabka ah nin walbo arko wuu soo sheegi karaa maanta nin walbo dhibaato suubinaya nin baa la dhashay yaqaano waxaan la soconaa shabaab cid kale ma ataagareeyaan nin walba ninkii la dhashay ayaa ataagareeyo ayaa dhibaateeyo maanta markay dhibaatadaas maleegayeen waxa macquul ah inay ummad ogaayeen laakiin ayagana dhibaatada maanta dhacday way ku dhici doontaa waayo ushi walaalka ku dhacday gumudkeeda adiga ayuu ku yaalaa annaga waxaan diyaar u nahay cadawgan argagixisada al-shabaab in dhiigooda janno aan ku galno haddii ayaga dhiigga ummadda Soomaaliyeed inay janno ku galeen u banaysteen maanta adduunyada waa laga tagayaa ilaahay ninkoo dooranaya ilaaha og jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala cidoo doona ayuu geynayaa ilaahay waa facaalu limaa yuriid إن شاء الله تعالى وقتك أصاب إسكدو هولا وإسكد أمان دونتا يعني إذن كدبات دين توق نمدا إسكوتا وايو وحان إذن شيئا يا هداد نفسك عنك كوهايسان الشباب هداد نفسك عنك كوهايسان آد أمد إذن كنفت سوقي لسين إذن كما سوقي لنين إلهي سبحانه وتعالى يا سوقي لي بلانتن إلهي يا هرو الشيئا إذا جاء جلوها لا يستعقلون ساعة ولا يستخدمون ما أنت جيريوتي أنت هراء جيريوتي شيدان كينا حمانتينا فول حمدينا أيا إذن تشتي إن أجنك تجيسان بس لكن وقت جود أياد ماضي الله أنه حريسته الله جنة الفردوس جيو بس لكن أنا وحى حقيقة لبعضها إذن كأد ودان إن كور يستاجنو أم بأن يجينا جنة كوجلنا إله سبحانه وتعالى مرقاته أيوكيه waayo uma taagnin inaan umada dhibaateeyno uma taagnin umada inaan baadno uma taagnin dameeryada oo dadka u raran qoryaha u saaran inaan gubno macal qoryihiisa idinka maanta bulshada inaad cuntaan ayaa taagantihiin bulshada inaad cuntaan hilibkooda ayaa taagantihiin waayo iimaankii ayaa ilaahay idinka qaaday ruuxna hadduu ilaahay iimaanka ka qaado yacni xoolaha waxba ma dhaamo waayo maanta adduunyada aan joogno waxaad aaminsan tihiin dhibaato in janno lagu galaayo mar walbana waxaad soo qaadataan xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ka been sheegataan yakhshu jayshul ka'bi fa idha kaanu bi baydaa yakhsifun bi awwalihim wa aakhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim xadiiskaas been ayaad oga sheegataan waad ka been sheegataan waayo xadiiskaas wuxuu ahaa thumma yub'athuna ala niyatihim marka la dhahayo ma ahayn dadkaas dad oo suuqa waxa ku gaadanayo ay ahaayeen duulkaana duul kacbada ku duulay ay ahaayeen ma ahayn nin masaajid ku jiro oo la aadayo meelo lagu xiraayo ma ahayn xadiiskan waad ka been sheegteen markay nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam Aisha weydiisay ay dhahday ya rasuulullah in qoom kan la halaagay waxa ku jiro qoom oo aswaaq oo suuqley ah aan dhibaato suubinin markay dhahday thumma yub'athuna ala niyati markuu leeyahay ma ahan nin masjid ku jiro in miina loo dhigo kuma jirin waa dad kacbada u duulay maanta idinka kacbadana ma badbaadisaan baytullaahina ma badbaadisaan ummadii Soomaaliyeedna ma badbaadisaan meel ilaahay abuurtay dameerkii ninkii wadi ma badbaadisaan caruurtii xoog baad ku wadataan ma badbaadisaan war diintan fool xumada ah aad nagu soo ziyaadiseen oo irhaabiga ah oo al-qaacidada ah oo sharciga islaamka aanan qabin war ma ii sheegi kartaan dhiiga muslimiinta aayada banaynayso nin masaajid ka soo baxay dhiigiisa aayada banaynayso ma ii sheegi kartaan درجة أتكه ليسان محيطها نين إلهي سبحانه وتعالى هرتيسا تاقنا
salaadii soo tugtay inaad dishaan darajada aad ka helaysaa maxay tahay hoog iyo halaag iyo khasaare ayaad ku sugan tihiin balse ma ogidiin laakiin dhalinyarada la soo maran habaabinaayo la soo dhuminaayo la soo diraayo balse waxaan jeclaan lahaa amiirka caloosha weyn leh oo qaa'inka ah oo daalimka ah oo shaydaanka u adeego ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo inuu miinada isku soo xiro asiga soo baxo caruurta masaakiinta ah oo juhalada ah ayaad maran habaabisaan waayo qof aqoon leh ma qaato qaacidadiina waayo maanta nin hal xaraf diinta islaamka ka yaqaano ma qaadanayo qaacidada awadataan waayo nin ogolaanayo male nafsadaada miinaha lagu xiray isqarxi ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan naftaada bilaash aad u gooysid ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kama aha maanta adduunyada waxaad ku taagan tihiin waxaan sharciga islaamka aan ahayn oo baalmarsan oo shareecadii islaamkii diiday culimmadii ay ka wada hadleen oo dhiigga islaamka aad banaysanaysaan inaad naar ugu socotaan mooyaan janno kuma tagaysaan waxaad doonaysaan xukunna noocaan laguma helo masaakiinta gumaada laakiin annagana waa idin daba taagannahay idinkama daba hari doonno insha allahu tacaala al-shabaab meel allaala meeshaa ku sugan tihiin haddaad baxdeen Itoobiya gasheen iyo haddaad koonfur galbeed gees ka joogtaan iyo haddaad gada joogtaan iyo haddaad galmudug joogtaan iyo haddaad waqooyi joogtaan iyo haddaad muqdisho joogtaan waa idin daba taagannahay idinkana socda wixii waqtigiisa dhamaaday ayaa dhimanayo horta hadday geerida gacantiina ku jirto bal soo dedejiya ummadoo dhan dhameeya geerida ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa ayay ku jirtaa waxaad ilowsan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala geerida gacantiisa inay ku jirto mar dhowne hadduu ilaahay idmo waad soo gabagaboobi doontaan insha allahu tacaala nasrigii ilaahay waxaad qaadan doono ciidamada Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa nasriga ilaahay qaadan doono asiga ayaa idinka guuleysan doono dhibaatada iyo foolxumada aad la damacsantihiin wadanka Soomaaliyeed aad la damacsantihiin ummadda Soomaaliyeed inaad ku dhibaataysaan idiima suurtagali doonto mana dhici doonto sidaad jeceshihiin ma dhici doonto insha allahu tacaala annagana waxaan diyaar u nahay dhiiggiina inaan janno ku galno sidaad u banaysateen dhiigga ummadda Soomaaliyeed dhiigga masaakiinta ah dhiigga ummadda salaada tugtida u banaysateen ayaa annagana waxaan u banaysanay ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u bandhigaynaa inaan ummadda badbaadino oo badbaadada aan badbaadinayno inaan janno ku tagayna dhiiggiina waayo ahlu naar ayaa tihiin dad naar looga yeeraayo lama celin karo waxaad adeegsataan inaad janno u socotaan uma socotaan naarta ayaa lidinka yeerayaa shaydaan ayaa gacanta idiin haatinayo oo idin dhahayo kii masaajidka ku jila soo dila kii banaanka taagnaa soo dila kii suuqa jooga soo dila kii dameerka watay soo dila laakiin intaas dil aad wadaan inta dhimataba ajashooda ayaa gashay idinkana waad baabi'i doontaan Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay meel allaala meesha joogtaan argagixisada arxalaabayaasha al-shabaab meesha aad ku aragtaan kala shaqeeya ciidamada insha allahu tacaala annagana waxaan diyaar u nahay inaan dhiiggiina mar walba aan badbaadino ayaan u joognaa halkaas mana ka cabsan doono mana laga cabsanaayo ayaga dan kale ma lahan shacabka inay argagixiyaan balse annaga nooma hanjabi karaan nama cabsi gelin karaan mar walba waxaan diyaar u nahay annaga dhiiggeena inaan aan u hurno ummadda Soomaaliyeed ilaahay dartiis ayaan ula dagaalaynaa aan u baabi'in doonaa insha allahu tacaala mar dhowna magacooda waa la waan doonaa marka insha allah Soomaaliya meel allaala meesha joogtaan faataxada inoo mara ummadan xunna meeshii lagu soo arko argagixisada arxalaawayaasha ah ha la soo sheego ciidamada ha lagu soo xiro ha la soo xariiro magaciina la sheegi maayo cidii soo sheegto magaceeda la sheegi maayo si tartiib ayaa loogu tagayaa ayaa dhibaatada ee wadaan looga hortagi doonaa insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya ha noolaato al-shabaab waxaan u sheegayaa Soomaaliya ma dhameyn kartide adiga ayaa dhamaanaysid insha allahu tacaala waqtigaagu uu gaaban yahay insha allah ilaa waqtigaagu laga gaaro hoolahaaga iska wada shayaadiinta kugu shaqeystaan laakiin diinta islaamku way baalmarsantahay waxyaabaha ku dhaqmaysid inaad ka fiirsatid islaamnimada aad u soo naqatid
aad qadarisid ummadda masaajidka ku jirto aad qadarisid ummadda shacabka maslaxadaada ayaa ku jirto haddaadan ka waantoobin meel alaale meeshaa joogtid godkaaga ayaan kuugu soo gali doonaa insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato intii dhimatay allah u naxariisto intii dhimatay allah u naxariisto intii dhimatay allah u naxariisto jannatulfirdowsi allaha geeyo intii gacan ka xaq daran dishay allah u naxariisto intii cadow ee waddankaas cadow ku een annagaa hortaagan ummadda soomaaliyeed meel allaale meeshii joogta intii laga geeriyooday waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay ummaddii ka geeriyootay jannatulfirdowsi calaa ilaahay geeyo al-shabaabkan waa cadow wuxuu ku yahay ummadda soomaaliyeed wuxuu ku yahay ummadda soomaaliyeed wuxuu ku yahay muslimiinta maanta ayaga diinta ay wataan oo shareecada islaamka u soo sheegtay inay dhiigga ku banaystaan waa waxaan fahmi waayey laakiin insha allahu tacaala mar dhow magacooda waa la waan doonaa insha allahu tacaala hoolihiina wata annagana waa idinku soo daba soconnaa insha allahu tacaala SNA guul ayaan u rajaynayaa meel allaale meeshay joogto waxaan u rajaynayaa annagana waxaan diyaar u nahay dhiigga shabaab inaan ilaahay ugu dhowaanayno sida aan xajaaj bin yuusuf assaqafi cunugii yaraa markuu dhahay dhiiggaaga ayaa ilaahay ugu dhowaanayaa dhiiggayga ilaahay uguma dhowaanayside shaydaankaaga ayaa kuu sheegay al-shabaab shaydaankaaga ayaa kuu sheegay ummadda soomaaliyeed inaad dhiiggooda janno aad ugu dhowaanaysid laakiin annaga dhiiggaaga ayaan janno ugu dhowaanaynaa insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu SNA guul ayaan leeyahay meel allaale meeshaa joogtaan ka guulaysta al-shabaab